fadliga iyo asraarta iyo karaamooyinka ku qarsoon waa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo loo duceynayo. fadliga nabiga uu leeyahay waa ashrafu khalqi ilaahi subxaanahu wa tacaala, yaana amray ilaahay subxaanahu wa tacaala. yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima. waa amar ilaahay subxaanahu wa tacaala. amarkaas waa sunno. haddii nabiga aa maqashana calayhi salaatu wasalaam inaad ka jawaabto oo saliga nabiga ugu jawaabto magaciisa allahuma salli wasalim calaa muxamed, haddii agtaada lagu sheego nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadana waa waajib. qiso cajiib badan doctor mamduux wuxuu noo sheegay arday ardaydiis ka mid ah ayaa hooyadeeda ayaa xanuunsatay xanuun oo ka mid a xanuunada khatarta ah oo dawada aan lahayn. faxsigaa la sameeyey, baaris, xanuunkia laga helay. xanuunkii marka laga helay faamilka welwel ayaa galay. waxaa culummada ay ku dardaarantay saliga nebiga in lagu akriyo. halkan waxaa ka fahmaysaa oo muhim ah oo culummada markay wax ku dardaarmayaan dawo ahaan ay u dardaarmayaan. marka waxaa jirto wax qofka mu'minka uu rumaysan yahay oo laakiin dadka gaalada aan rumaysnayn. yaa gaal markaa rumaysanayo kansar oo hadda dawo loo la-yahay in lagu daweyn karo saliga nebiga calayhi salaam, anaga laakiin waa rumaysanaynaa. maxaa daliil u ah xadiiskii aan horey usoo sheegay oo xalaqooyinka mid kamid aan kusoo sheegay oo ahayd ninkii dhahaya maalintii oo dhan saliga haddaan aqriyo calayhi salaatu wasalaam maxaa dhacay? rasuulku uu u sheegay, wuxuu dhahay yukfaa hamuk wa yuqfaru dambuk. wax alle wixii hami iyo wixii keenaya macnaa wixii culays ku hayo o dhanaa lagaa qaadaya. xanuunku waa culays. maxaa la sameeyey marka? familkii way isugu tageen, waxaa lagu akhriyay saliga nabiga calayhi salaam meeqa kun oo jeer ma tirin karo, laakiin sheekha wuxuu yidhi wax badanaa lagu akhriyay. maalmo kadib mucjizaa dhacday. maamadii caadi waxay bilowday si caadi inay u dhaqdhaqaaqdo, si caadi inay waa lala cararay. waxaa la yidhi maya waxbaa meeshaan socdo. dhakhtarkiyaa la geeyey, faxsiyaa laga qaaday. jirkeedii waxaa soo baxay meeshii calaamadii kansarka laga helay ibri iyadoo ah afwan oo waxba aan lahayn. isla markiiba maxaa dhacday? doctor mamduux wuxuu dhahay familkii markay heleen natiijadii markaasay iisoo ordinay ii yimaadeen. waxay dhaheen taladii culummada oo ahayd saliga nebiga inaan wax ka raadino ilaahay wuu aqbalay. marka saliga nebiga calayhi salaam meeqaa ku celcelinaysaa? tiro ma lahan, waa sheegnay. haddaad sii ziyaadiso maalintii ugu yaraan 100 ama salaad kasta haddaad 100 ka dhigto 500 adi 10 ku dhifo mar kasto. 100 haddaad dhahdo 1000 jeeru ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu naxariisanaya. salaada fajr kadib fariiso allahuma salli wasalim calaa maxamed, allahuma salli wasalim calaa maxamed. carabkaaga intuu laqwi sheekooyana macno lahayn ama hayso ama wax aan loo joogin uu ka sheekeen lahaa ummadaas inaad ka dhex baxdo. ilaahay subxaanahu wa tacaala digri u samee. markaad samayso digriga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo keligaa gacanta aad taagto maxaa dhacaya? ilaah waa ajiibaya. aqulu qawli hada wa astaghfiru lii wa lakum. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu.